Miami waa mid ka mid ah magaalooyinka loogu raadinta badan yahay xilliyada fasaxa. Waa magaalo dhacda gobolka Florida ee dalka Mareykanka, laakiin ma ahan caasimadda gobolka iyo magaalada ugu weyn toona oo waxa ka weyn magaalada Jacksonville, halka xarunta gobolkana loo asteeyay Tallahassee. laakiin labada magaalo waxa ka caansan kana saameyn badan Miami, waxaana magaalo ahaan dadka ku nool tiradooda lagu sheegaa 400,000. Miami kaliya ma koobsan xeebaha dalxiis iyo dukaameysiga, balse sidoo kale waxay leedahay arrimo taariikhi ah. magaceeda ay caanka ku tahay ee Miami wuxuu ka yimid mid ka mid ah qabiilada asaliga ah ee Amerika, waxaana lagu magacaabi jiray Miami. waxayna halkan maanta magaalada ah ay ku noolaayeen qarniyadii 16aad ilaa 17aad. laakiin magaalo ahaan waxaa magaaladan aasaastay haweeney ganacsato ahayd oo lagu magacaabi jiray Julia Tuttle. waxay dhiirigelisay in la maalgashado dhulka maanta laga dhisay dhismayaasha casriga. waxaa loo yaqaanaa hooyada Miami, waxaana loo dhisay taalo lagu xasuusto. sidoo kale waxaa loo diiwaan geliyay inay tahay haweeneyda kaliya ee aasaastay magaalo weyn oo Mareykanka dhacda. Miami waxaa lagu naanaysaa magaalada sixirka ama Magic City. naaneystan waxay ku kasbatay in ay dadka taga si sixir lamood ah u bedesho, halka dadka qaarna tilmaamaan in naaneystan ay ku heshay habka degdega ah ee isugu bedeshay mid baaxad weyn.